shirkaddan hadda lama yiraahdo forex lama yiraahdo forex bisa la yiraahdo dadka waa u gambisay maadaama ay dadka Soomaaliyeed u gambisay ha ka fiirsan kuwa ay lacag uga jiraan ama kuwa maxay ahayd hadda damacsan inay u geystaan forex lacagta waxa baraha bulshada la isla dhexmarayay in shirkadda 252 oo kamid ah kuwa suuqa sarifka caalamiga ee forex ay la baxsadeen lacag fara badan oo ay lahaayeen saamileedii dhigatay shirkadda 252 waxaana arrinkaasi ka dhashay guux fara badan kaas oo ku aadan shaki ku beermay qaar kamid ah bulshada qaar kamid ah dadkii ay lacagaha ugu jireen shirkaddan 252 ayaa sheegay in lacagahoodii aysan gacan ku hayn waxayna tilmaameen in laamaha amniga ay ka warsugayaan wixii ka soo baxo arrinkaasi iyagoo codsaday in taas aysan ka harin booliiska gobolka Banaadir ayna dib ugu soo celiyaan lacagahoodii waxa cabasho ka ahayn barnaamijka forex 252 ay dhacday maanta bishan ugu horeysa aan galay waxaan dhigtay lacag $1,000 gaaraysa maanta marka bisha 35 maalin ka bacdi soo laabaa leedahay 20 bisha marka xalay barnaamij waxay noo soo galiyeen lacagtiina waa luntay 252 aad luntay camal mana saamicaysa 252 20 maalin gudood ma ku dhumi karto maanta barnaamijkana saas ugu jira lacagna la masiin lacagtiina waa laga qaatay waxa aan bajaajada ay magaalada ka xamaasha lacagtii aan islaahay ku shaqeyso lacag ku hel laga qaatay 252 ay qaatay warqadii cadeen wax walba waa haya marka asaga ninkii aan la hadlayna oo wuxuu dhahay daacib waa dhacday barnaamijkan inuu qaado wax soconayna ma aan barnaamijka ma fahamtay warqadiina waa haya cadeemii warqadina waa haya 252 warqadooduna waa tan ma fahamtay waatana warqad cadeentoodu waa ayaga lacagteedana la masiin lacagteedana meesha isku luntay 252 ana dhacday cid kale ana dhacday dadka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in barnaamijkan forex dadka ku jira ha iskaga baxaan adayla sida waa nin walba maalin walba shirkad cusub soo baxaysa in xoolaha dadka la dhaca loo baahan yahay faantay mana saamicayso qof walba hada shirkadaha galay shirkadda hada xamarweyne laba shirkadood hada dad dhacday la shaahin faantay waxaana wax damiin iyo wax ma lahan lacagteedana hada waxaan ka qaatay ma jirto $1,000 saas ku lumay faantay dadkan aan waxaan u talinaa dadkan forex ku jira inay iskaga baxaan maanta hada waa kan halkaan taagana xafiiskooda uu xiran yahay ragii ay dhacayna Turkiga aadeen Allah ya faantay hay'adaha amniga wax war ma ka heshay hay'adaha amniga xalay maadeen nin meesha damiin ka ahaa ala qabtay ala dhaay ninka meesha ka kiriyay Allah ayaa la dhaay ilaa hadana warbixin lana masiin ilaa hadana meesha way xiran tahay ilaa amar danba la dhaay waana sugeynaa dawladda ayagana waxaan ka cabanaynaa in lacagaheena lagu soo dhicay ragaad wayna joogaa magaalada akoonka lacagta ku sugan waa haya akoonkaas hadii lacagteeda laga qaadi karaa laga qaado sidoo kale arrinkani waxa ka aragti dhiibtay shacabka reer Muqdisho iyagoo intooda badan uga digay shacabka inay lacagahooda dhigtaan shirkadaha aan damaanada lahayn ama baa u diiwaan gashaneen hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya taasoo ku saabsan shirkaddan maanta dadka Soomaaliyeed meeshan dhooban dhacday oo ka dhacda hantidoodii shirkaddan kaliya dhowr shirkad oo ay ka mid tahay qaran ayaa jira oo dadka Soomaaliyeed hantidooda qaba hadana meel aan lagu sheegay dadka Soomaaliyeed ha iska daayaan haya raaca hadii meel wax loogu sheego aaminada zaa'idka ay aaminayaan sababtu waxay tahay waagi hore waxa jira dadku hantidooda guryaha dhiga jireen dahabkooda guryaha dhiga jireen lacagtooda meel ku shuban jireen nin walba dukaan furta ama meel furta sanduuqada hadii lacagta loo geeyo hadana aan adrees laga raacin ama aan salahayn waxay daraaca waa dhibaato inteeda la eg shirkaddan hadda lama yiraahdo forex lama yiraahdo forex bisa la yiraahdo dadka waa u gambisay maadaama ay dadka Soomaaliyeed u gambisay ha ka fiirsan kuwa ay lacag uga jiraan ama kuwa maxay ahayd hadda damacsan inay u geystaan forex lacagta marka dadka Soomaaliyeed waxaan kula balami lahaa in ay yareeyaan oo ay naaqisiyaan ama ka fiirsadaan hantida laga dhacay dukaamada kulu haday hay wayn dadka masaakinta ha lagu sadaqaysto agoonta lagu sadaqaysto dadka oo barakaca iyo beeraha iyo lagu sadaqaysto waxaan u jeedaa ama aan dareemaa in lacagta la hay waayo warbixiina kala ku rita barkadana tuuga dawqaaqada tuuga Soomaaliya waayo laakiin shirkado kambaniyo adduunka laga keenay in lacagtiina aan maaragtay aad siisaan waa qalad weyn waana ka baxwa mahadsantiin waxa la dhacay $500,000 ah dadku barxadday wada taagan yihiin dhalinyaro odayaal nooc walba la isugu jiro waxaan uga digaynaa in lacagtiina ummadda Soomaaliyeed ay ka digtoonaadaan meelaha ay dhiganaynin waxaan central bankiga ahayn oo aan loo hayn damaanad oo dad dibadda ka yimid oo go'aan baa kaliya wata inay furteen xafiisyo ay dadka ay ku dhacayaan aragti ahaan waxaan ka aaminsanahay dad u soo shaqo tagay ummadda Soomaaliyeed oo 30 sano dhibaataysnaa oo wax ka celiyay aysan lahayn
in la sii dhacayo ayaan ka aaminsanahay oo aan ahayn wax damiin ah aysan lahayn haddii aan ka dhiibto fikirkayga barnaamijkan Forex oo kale waxaan miisanayaa barnaamij aad iyo aad u khaldan sababtoo ah qof yani aqli leh ama damirkiisa buuxo yani ma aaminsanay lacag tiriyar inaa meel dhigato bish lacag inta soo ku helay sababtoo waxa weeye macna waxa la leeyahay wala jeeda kale meesha inay jirto laga yaabo يعني تادي كله حتى أنا سومالي أنا إني سأمن عادي وفوضى عجب بخلي كنت أنا ميل دي سعادنا يعني أقوم بخلي عجيرة ميل دي ساكت بني بيش أنت ساقوس ولا عيسى أما وحياة نوع عسل عجيرة ولا بخل دور الناس كديما يقولها لكن ما أمن سن فكر كي وكسور جدا أنا حوله عم أنتي جدا ميل قليو أنا ميل أروح على الحين وكسور جدا نتك سومالي أما طنيرة برنامج كبرى تنحلي لا وركجوجا هنتين هاخد ضيعني عدالة نكاكون ما سنتين شاء وحلي هاي طنيرتها بدن لخساريين إن استشيان أو يهب يسكديان حوله هذين أي دولدو أي بعض دونان كل إن مكها لعقت لقليي حفيظة فرتي عن شرع جرسنين وحلي هاي كل واحد نقول بقى وسفانسين هاي إن أنت أنا ودك كبحين لعق جاري سهل مليون $1 أيا سلم شكو دكتي وحلي هاي مكها أنت أنا ودك كبحين شرع جرسنين كبحين إن لصاق qabto oo dadka aan xoolahoodii looga soo qaado dadka qaar ayaa qaba aragti ka duwan midani iyagoo aaminsan in shirkadaha sarifka caalamiga ee Forex ay yihiin kuwa lagu hodmay ayna ka helaan faa'iidooyin fara badan. Nuno Xuseen Sheekh Maxamed, muuqaal baahiyaha Horyaal, magaalada Muqdisho.